aqoonsi iyo adkaysi aqoonsi waynu helnay waa idinkii ogaayo muxuu ahaaytay aynu u dabaaldegayni kuwii kalena waa soo socdaan aqoonsanadii kalena waa soo socdaan madaxweynaheenu wax kale kuma maqan intaa meel kasta saasuu inuu sidii Somaliland aqoonsiyaal fara badan ay u heli lahayd waa soo socdaan insha Allah billahi karim wadanka muxuu ahaaytay idinku ma idi jirin mana idi jirin intii wadanka la soo galay uu baa ka caanteen wadanku taariikh aad u ayuu soo maray dadkii maatadii way qaxeen qof kasta caruurtiisa buu la carar waa la lugeeyay qof kasta qaar baa Itoobiya u leexday qaar baa xagga qabtay buuraha qabtay meel kasta qabtay saasuma dadkii wada baxeen SNM waxay soo gashay jimcii bay soo gashay anigu amarka Ilaahay markaasaan maalin khamiiseed oo fasax leeyahay ayaan waxaan ka imi Berbera oo reerkayga digara barco iyagaan u imi sabtidana waa noqonayay maantaan arkay ciidankayagii SNMtii oo soo gashay ayaan Allahay ka Allah faqashta baan ku noqdo dalaaya idinku dhacday kar halkii baan maxaa ahaaytay ciidankii yaraa ee SNM ka adkaadeen faqashtii ciidankii afweyne laga adkaado ayeeyo waqti xaadirkii uu socday dagaalku dadkuna ay qaxeen maadaama aysan jirin goobo caafimaad oo rasmi ah sidee baa loo heli jiray daryeel caafimaad ama si dadka loogu bixin jiray adeeg caafimaad ma lahayn muxuu ahaaytay guryo la geliyo dhaawac أنا أحكي لي شيء دكتور عبدو وإسماعيل كورنيلا هي إلى شوي وحنو نربانو وابشرني نر أيا لوابشري نرتاس أيام حون هايتي أنا هدان تردوين هلنا وحرشر هذيك لنا نرتو بحول لو هرينشر هل كاسانو كده وينشر فلا بياش lagu muxuu ahaaytay dadka lagu qalayay muxuu ahaaytay lagu mudayay qofka dee loo soo celinayay inta anka waanu qarba lagu saa ugu laalaaday intaanu goynaaba la tolaayo muxuu ahaaytay aanu daweynaayo bas halka ay iskaga bogsadaan Ilaahay noo bogsiya marka dhirtaas ayaa lagu daweyn jiray teendooyinka waana ku guuleysan maadaama ay waagi hore burburka badan iyo dagaalada ay jireen sidee bay dhalaanku ay u heli jireen waxbarasho horta 5 sano iyo 4 sano laga maqnaa dalka ma iskuullada xasbi jirin qofka qolo kastaba ubadkii iyo dadkoodii waa iyaga way la qaxeen waa la qaxay iskuul ma jirin laakiin markii dalka la soo galay waa la waday waa iskuuladii baa la dhisay waa iskuuladii waa lagu noqday marka barashooyinka halkaas laga bilaabo ay maadaama dhismayaashii burbureen dadkiina ay qaxeen sidee ayaa dib looga soo kabtay dadkooda waxay la tageen muxuu ahaaytay Itoobiya meelaha bay qatageen miyigaas la tagay wixii reer baadiye reer miyi lahaa guryaha aqal Soomaaliyaasha la gali jireen wixii kalena dhir bay waaban jireen oo dhirtaas la waaban jiro oo la seexan jiro garoonma dhulkaas la iska seexan jiro wato maanta waynu aragnaayo wadan qurux badan baynu joognaayo adduunkii la dhisayo wax kasta fooqaqi dabaqya laga dhisayo Yurub baynu dabadaha la tartamayna marka alxamdulillah taaganahay ma sha Allah maanta cid inaga wanaagsan ma jirto
nabadgelyaynu haysanaa muxuu ahaaytay wax kasta oo haysan wax inaga maqani ma jirto ayo maadaama ay jirin imika miidiyahan cusub iyo wasaaradahan warfaafinta sideeba imika marka aan joogna aqalka laga dhawaaqay sidee dadka u gaaray ama wadamada caalamka warkeenina u gaaray taarar baa jirayo wararka rikoodhada jirayo maalaha raadiyo yaryar baa jirayo muxuu ahaatay mikrofoonayaal baa jirayo lagu hadli jirayo laisku wacdiyi jirayo waxaa idinku ma garanaysaan marka taarar baa jirayo layskula hadlo dhiidhaa la yidhaahdo dhiidh marka taararkaasaa layskula hadli jirayo waa la barakaysnaa haddaba iyo jiilkaygan dambe maxaad dhaxal nooga tegaysaa ama aad noo sheegaysaa ama nagula talinaysaa aad baad cabdimaalig u mahadsan tahay waxaan idinku waaninayaa ama idinku boorinayaa dhallinyaradiina dambe muxuu ahaytoy horta qodobka koowaad marka ugu horeysa in tariibta la iska ilaaliyo oo iska ilaalisa tariibta iska ilaaliyo waad aragteen dadkeenii dhallinyaradii idin laaleekeed bad bay ku dhammaadeen nin magafe la yidhaahda ayaa beerkii iyo meel kasta kala soo baxayo markuu lacag ka waayabay ayay qaarajinayaan marka waxaan idinku boorinayaa dhallinyarooy guryihiinana u sheega walaalihiina u sheega asxaabtiinana u sheega tariibtu inaan rajo lahayn waa la soo celiyey baday ku dhammaadeen qaar way iska soo noqdeen marka tariibta iska daaya sababtoo waddankiinnii ayaa hodana waxa weeye waddankiinu waa hodan waa waddan ammaana adduunka waynu dheragsanna adduun weynuhu waynala yaaban yihiin Soomaaliland intan yar ee nabadgelyada iyo adduunka wax kasta aan cidba u baahnayn waa maasha Allah wax Ilaahay loogu mahadnaqa Ilaahayna inoo siyaadiyo madaxweynaheennan meel kasta ordaya wax kasta inoo qabanayana Allah inoo daayi Allah inoo daayi mar labaad iyo mar saddexaad baa u ducaynayna Ilaahay cimrigiisa dheereeyo midda kale waxaan idinku kala oon idin sheegayaa nabadgelyada hala ilaaliyo nabadgelyada qof kastaba wuxuu ka soo toosay guri cadow baynu leenahay Allah inaga jabiye Ilaahay ha jabiyo cadow ha marka soo sheega waxaad ka shakidaan soo sheega dawladda meesha xafiiska bilayska meel kasta xirada ciidan marba qofka meesha u dhow waxbaan arkay kaale nala soo arka madaxweynayaashii kuwii hore iyo madaxweynaha hadda hayaba alla daayay dawladdeena Soomaaliland Allah barakeeyo marka madaxweynahan cusub oo madaxweyne aad u dadaalaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi gabigiisa waxa la yiraahdaa nabadeeye ayaa la yiraahdaa Allah barakeeyo Ilaahay cadowgiisana Allah jabiyo